بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وزير دولها arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka, la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasadda, taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidamada sane, gudoomiyaha gobolka Bakool iyo gudoomiyaha degmada Xudur, saxaafadda iyo mas'uuliyiinta inta joogto iyo dadka reer Bakool oo dhan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ku nimid arrimo shaqo aan u soo gaarnay degmada Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool, oo sida aad la socotaanba muddadaanba ay ka jirtay cabasho bini'aadanimo ah oo daruuf ka timid cunaqabatayn iyo dhibaato muddo dheer ku soo socotay oo lagu hayay dadka guud ahaan gobolka Bakool degan iyo koonfur galbeed oo dhan, laakiin si gooni ah muddadii dambe u saameysay degmada Xudur oo ahayd jidadkii furnaa iyo adeegyadii ganacsatada oo culaysyo badan iyo khasaare badan soo gaaray. 2 jeer oo isku xigto ay gubteen 8 iyo 9 17 baabuur oo dad ganacsato ah oo reer Xudur ay lahaayeen, sidaas darteedna uu jidkii ku xirmay. muddadaas iyo ka horba waxaa jirtay istiraatiijiyo siyaasadeed oo amniga ku saabsan oo dowlad goboleedka koonfur galbeed aan ka shaqaynaynay, oo ahayd in jidadka la isu furo annaga oo la kaashanayno hay-adaha amniga ka shaqeeya oo dhan noocyadooda kala duwan. istiraatiijiyadii ayada ahayd qorshaheedii waa socday, waxaana jecelnahay hadda inuu suurto galo. imaatinka aan hadda Xudur u nimid annagoo qorshihii ka dhabeynayno, waxaan ka jawaabaynaa oon rabnaa inaan ka jawaab celino cabashada iyo qayladhaanta gobolka Bakool guud ahaan, gaar ahaan degmada Xudur oo caasimadii ah kasoo yeertay, oo runtii xaqiiqatan markii loo fiiriyo marxaladda ay ku jiraan ay dhab tahay. waa ognahay dadka Bakool dad muwaadiniin oo aad u fiican oo dulqaad badan oo samir badan, dowladnimadana jecel, dalkoodii dadkoodana jecel, gurmad bay xaq u lahaayeen, waana wixii awood dowladeed ahayd oo gurmad ahaa waa sameynay. mana aha markii ugu horreysay oo nimaano, waa magaaladii iigu badnayd markii laga reebo xarunta aan ku shaqaynayno oo koonfur galbeed Baydhabo 18 degmo, degmadii aan ugu imaashaha badnaa, oon ugu shaqada badnaa, oon ugu joogista badnaa, oon waqtiga ugu badnaa aan gelinay aniga iyo golahayga wasiirada iyo hay-adaha amniga oo dhan. haddana marka joogayno waajibna saaran waaye, waa gelinaynaa. waxaan jecelnahay oo u nimid hadduu ilaahay yidhaaho inaan baaqi ka jawaabno, jidkana loo furo, isu socodkii ganacsigina iyo jidadkiina ay shaqeeyaan hadduu ilaahay yidhaaho. intaas kadib waxaan rabaa dadka beesha caalamka iyo hay-adaha samafalka iyo doonarka inay baaq ayaa u direynaa inay sida ugu dhaqsaha badan ay dadkan oo abaar amni keenay uu saameeyey iyo daruufihii ayax wax soo saarkii oo ayax uu baabi'iyey, in gurmad degdeg ah waxaan codsanaynaa ay la soo gaaraan hay-adaha samafalka iyo deeq bixiyaalka oo dhan, doonarka, sida ugu dhaqsaha badan ay usoo gurmadaan. sidaasoo kale dowladaha adduunyada ka jira oo dhan
iyo dowladda federaalka ayadana waxaan ka codsanaynaa inay ay noo soo gurmadaan oo nagala qayb qaataan dhibaatadan bini aadanimada oo ka taagan guud ahaan gobolka Bakool oo dhan. markii gobolka Bakool la leeyahay degmada Xudur waa caasimadii, haddana waxaa ku nool laba degmo oo ku jirto gacanta shabaab shacabkiisa. degmada Tieglow shacabkii deganaa oo laga soo barakiciyay muddo 6 sano iyo ka badan waxay ku nool yihiin Xudur. degmada Rabbuur rasaas oo kale dadkii deganaa shacabkii ayagana sidaas oo kale waxay ku nool yihiin degmada Xudur. marka gobolka Bakool ceel barde iyo waajid ya ka maqan ayagana duruuftaas oo kale iyay qabaan. sidaas oo kalena loogu gurman doono hadduu Ilaahay yiraahdo. waxyaalahan u socono on xoog saareynana waxa weeye inuu gobolka isu furmo ceel barde iyo Xudur iyo waajid in la isu furo. labadii degmo kalena dib loo soo celiyo. waa hawl u baahan iskaashi, midnimo, isgarab istaag, ciidan, shacab, mas'uul, cid kasta oo reer Koonfur Galbeed oo dalkan iyo dadkan ka naxaysan inay u istaagto ay tahay. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo Ilaahay uu waxsiiyay inay dadkan walaalahooda ah oo nin walbaba wuxuu ugu soo gurman karo ugu soo gurmado. annagana dawlad ahaan aan mas'uuliyadda ka qaadano. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii maamulkii iyo shacabkii Xudur oo muddada badan dulqaatay. sida aan noo soo dhaweysan waa ku mahadsantihiin. hadduu Ilaahay yiraaho saan noogu faraxsantihiin annagana aan kugu faraxsannahay. sida noo jeceshiin baan idin jecelnahay. hadduu Ilaahay yiraaho jawaab degdeg ah ka bixin doonaa cabashadiina insha Allah ta'ala. saan u nimid annagoo ka jawaabnay oo aad aragteen jawaabtii aan bixi doonaa hadduu Ilaahay yiraaho. aad iyo aad u mahadsantihiin.